تانا حلالكم مدلل والله أنا حلال شينو وحربا شينه وحربا maxaa ku qabtaa qabyaaladu waxay ku badisay 700 kun Soomaalinimadu waxaa rabaa inay 1 milyan caawa ku badiso ma heli karnaa dadkay ku xiran tahay waana keenayaan de Soomaali waa garanaynaayo bahasha qabyaaladu eeg nin Ingiriis oo Soomaaliya tagay waayadii hore wuxuu yiri Soomaalidu saddex wax may ka dameysaa naam waa diinta qabiilka iyo geela waa nin Ingiriis ah yiri waa gaal hadduu doono waa khadanaan karaa laakiin run u badi saddexda haddii loo kala joojiyana wuxuu yiri qabiilka u badiyaan qabiilka xaqiisa ee u badiyaan marka hadda qabyaaladu waa qabyaalad weeye qabyaaladu waa qabyaalad Soomaalidu waa si kasta uga waani ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu ka madoobeeyo baan ka baryeynaa ilaahu annaga naga madoobay dadkayga ka madoobay amiin ilaahu naga madoobay ka madoobay ilaahu naga madoobay haddii soo eeg maanta eega maanta niman musharxiina jira tusaale kale ninka mid kamida farmaajo haddaan dhoo farmaajo waxbuu qabtay hala doonto oo micnaha fikir ahaan ay iga timaado fikir ahaan ila aragti muwaadin baan ahay moogtahay waxa la leeyahay shiina sidaa wuxuu leeyahay waa qabiil haddii bilaal ay ka timaado farmaajo oo fikirkiisa shakhsiga ah ay ka timaado fikirkiisa shakhsiga ah ay ka timaado oo uu yiraahdo farmaajo waxa ka fiicnaa xasan sheekha la soo celiyo micnaha garashadiisa Soomaalinimo oo qabiilka macamilada intaas soo waxa la oranayaa waa qabiil marka dadku iyaga dadka qabyaaladii balal aada laakiin ilaahayna ka madoobeeyo waxa kaloo idin sheegaya dadka Soomaaliyeed anu qurbaan joogaa dadka Soomaaliyeed waa arkay wallahi oo billahi dad ka fiican ka qalbi fiican ka wanaagsan ma jiraan saale waxa ku filan iyagoo 30 sano dhowr iyo 30 sano bilaa dawladda bay nool yihiin oo dalal Afrika ku yaala ka nolol fiican yihiin maxaa keenaya waxa keenaya dad isu jajaban wax istaraya isku xiran reerka ku xiga hadduu dabku ka dasan yahay kooda maxaa ku dhahdaa ee la shidanayaan micnaha ummad wax isku ah Soomaalinimo geeyma kan iyo ka ku xiga noogu dameeya Bajino Allah ku shafaade Bajino Allah ku shafo Bajino hal mar hal ciyaar hal dhinac xooga saara Bajino Allah milyan hal lagu badiyo Bajino Allah ku shafo Bajino Allah ku shafo sidaas dumile تقدرني شينا أرداي ما عواقاتي الرواية لا تسميي شينا بلط نكا أبتلو وغيرية إن شاء الله تعالى ترتك أرداد أو كدعية في شينا في شفاولو عدسي أدري سوام بلاولي تتلجونا إنك لقوة قلبي داودو يا يوم حريو للتعبد الله ابقى رواية جينا بلط وسط البلط قال هو عمري حوار عن تجي ولا ليا ريكورد بالله ذهب جينا هراي بجينو قدود اسكي قدا بيب اكل كيبولا أيوب ولا ليالو إلهي يا أيوب كملوا إلهي سنا كملوا آمين إلهو قبيلة كملوا إلهو كملوا إلهو سنا كملوا
أيوه قبيل دم أو قرياني هدام أكو يدمي شينو كلام إسلام كقاعد منه شينو قبيل دم أو قرياني أكو شينو شينه إيه كان هالمريسو شينه هالمريسو شينه هالمريسو هاي عيارتان وعيارتي ugu dambaysa soo maaha ها ciyaartan ugu dambaysa waxaa rabnaa ama dhankaaga ha ahaato ama dhankayga ha ahaato in wacdaro laga dhigo iskoorkii ugu weynaana la jibiyo هاي دلالة وأركيسان بسم الله الله أكبر وعيارتي ugu dambaysay iskoorkii ugu weynaa la sameeyo waxaan ku darayaa bilaal waxaan ku darayaa ha u fahminina inaan meesha usoo fariisanay inaan lacag helo muhiimadeeda taa ma ahayn muhiimadeeda in wax naloo soo diro ma ahayn muhiimadeedu waxay ahayd bacdamaa giimkii kan ka horreeyey aan walaalkay wada dheelnay uu xanaf badan uu sameeyey oo dad badan uu dhiigga ku kiciyey soomaalidu aan qabiilka laga marin annagu ciyaaraan islahayn laakiin arrintii baa nala fogaatay foolxumee dhashay sidaa darteed laba isjeclaaba waxaa laga yaabaa inay isku naceen laba deris ahaaba waxaa laga yaabaa inay ku kala guureen laba heshiis ahaaba waxaa laga yaabaa inay ku dirireen saas darteed waxaan go'aansanay aniga walaalkay inaan geemakan isugu nimaadno mar kale dadka u muujino soomaalinimo dhiiqadii aan galnay ka toobad keennay raaligelin dadka ka siino iyagana sidaas darteed aan dhahno shalay darteed haddaa u dirteen annagii heshiis baan nahay darteed haddaa shalay qabiil ugu kala dhaqaaqdeen annagii maanta qarannimaan ku taagannahay marka walaalayaalow idinkuna soo laabta isku soo laabta qabiil waa wax fool xun ilaahay ha idinka qabiil waa abtirsiiyo laakiin qabyaalad waa wax fool xun arrin kalena waa idin sheegaa maanta nin soomaaliya haddaa 3 nin 4 nin oo soomaaliya aduu rag soomaaliyeed meel wada taagan haddaan mid ka mid a soomaalinimada intaan ka tagno aan daaroodnimo isku raacno oo dadkii kale soomaalinimo uga tagno wallaahi oo bilaahi oo tallaahiya qabyaaladda berrina aniyo isagu waxaan ku kala tegaynaa 2 jifi oo daarood ka mid a baa ninba noqonaya qabyaaladdu waa sidaa eega tusaale yar aan siinaa dagaalo sukayaa soomaaliya ka dhacay mar waxaa jirtay hawiye iyo daarood la isu dilay oo la isu leynayay hawiye iyo daarood maxaa ku xigay fayslabadii waxaa ku xigay hawiye dhexdiisa islaynaya oo muqdisho isku haysta daarood dhexdiisa islaynaya oo kismaayo isku haysta qabiilka marka waa basasha markaa xufgoyso waa wax hadba gal baa dhacaya haddaa maanta daaroodnimo istaagto berri waxaa istaagaysaa meel ka hooseysa saa dambena meel kasii hooseysa hawiyena ka daalik ilaa uu ku gaarsiiyo inaad tidhaahdid labada walaalaha oo aa wada dhasheen ninkaas waa bah reer hebelo hooyadiisaasaa ahayd oo bah kale waaye marka insha allahu tacaala kaasaa noogu dambeeya qabiilna ilaahay ha naga madoobeeyo cid qabiil ku heshiisa oo kuu meel marto ku aflaxda taariikhda lama sheegin ninka siyaasiga ah oo